waxaynu bedelaynaa xukuumad mumisay kalsoonidii shacbigeeda waxaynu bedelaynaa 7 sano oo dubudhac iyo dhaqaale burbura waxaynu bedelaynaa in xildhibaan xasaanad la Somaliland ha noolaato awdal ha noolaato Boorama ha noolaato waxaan u baaqayaa shacbiga aan tiradiisa la qiyaasi karin ee magaalada Boorame ee maanta halkan isu soo baxan weyn ka soo qayb galay maalintii horaanigi waxaan Boorame way codaysay marka codayntiina mar labaad ku celisay aad baa u mahadsantihiin waa codayseen oo dareenkiina muujiseen inaad hogaaminaysaan isbeddelka ummadda Somaliland doonaysa insha Allah isbeddelkaasina wuu guulaysanaya idinkaana hogaaminaya waxaynu bedelaynaa 7 sannadood oo caburin iyo cagajuglayna 7 sannadood oo sharci ku tumasho iyo dastuur ku tumasho waxaynu bedelaynaa in xildhibaan xasaanadna la iska xidho sidii Maxamed Abiib waxaynu bedelaynaa in ugaas qaran oo gobolna matala ummad matala halcad loo bareero oo xabad lagu loo diido inuu soo galo sidii ugaas Cabdirashiid ugaas Rooble ugaas Turki waxaynu bedelaynaa 7 sano oo kala qaybin bulshada waxaynu bedelaynaa 7 sano oo dubudhac iyo dhaqaale burbura waxaynu bedelaynaa 7 sano oo sicir barar iyo saxariir waxaynu bedelaynaa 7 sano Somaliland weynay kalsoonidii beesha caalamka waxaynu bedelaynaa xukuumad mumisay kalsoonidii shacbigeeda oo dareenka Boorame maanta ugu horeeya insha Allah waxaan ku celinayaa mar labaad ballanqaadyadayda waxaan ugu horeysiinayaa si uu ka hadlayay mayrana hadda mashiinkii oksijiinta dhakhtarka Boorame inuu sanad fadhiyey oo uu fadhiyay $40,000 oo xukuumadda laga insha Allah xukuumadda waddan markay timaado waxa ugu horeeyay fili doontaa buu noqonayaa ka leeyahay ballanqaadyadii kalena waan ku celinayaa madaarka Boorame madan buu qabiyaha waa dhisaynaa jaalaya wadada isku xiraysa Boorame iyo Looyacdo ee lacagteedii diyaarka ah iyo xukuumaddii soo taagtayna waanu ka qaadaynaa xayiraan doona la dhisayo insha Allah wadada muhiimka ah ee Boorame iyo Markina waa dhisaynaa waxaa ka warqabteen inay aqoonyahankii gobolka Awdal maalin dhaweyd ay noo yimaadeen ay ka mid ahaayeen Dr. Bayle iyo Cabdisiix Xasan Mataan iyo odayaashii kale waxaan ballanqaadyadayda ku darayaa cilmi baarista ay sameeyeen ee ku saabsan cabashada Awdal hadday siyaasi tahay hadday horumar tahay iyagana ayaan wax ka qabanayno haddii insha Allah dastuurkana waynu furaynaa si uu qof kastoo Somaliland isaga arko haddii si aynu helno saami qaybsi cadaalad ku fadhiya tirakoobkii qarankana waa samaynaynaa haddii walaalayaal
ما أنت واحد كالدورون إني سوبل لدمتو يجيني بدبادو كيف دورون إنسان كيف دورون إنسان كيف دورون إنسان سوبل نقول ليستو اسمي هو وطني نقول ليستو اسمعي اسم دكتور أقول معها وشينا معها اسمعي سو اسمعي سو من هالقول اسمي وسياسة الكاكا وعكروا إن شاء الله أكون رئيسان ولو كاكا كسر شيء قارهان نورمي بالواقع اسمه وايس بالدكتور سوماليا نقول ليستو صدحية طوكا نوفمبر حزبي وطني نقول ليستو عدكينا هي صدحية طوكا نوفمبر هي إن شاء الله بسم الكوفر قلا هي سوماليا نقول ليستا أي نوعها صدحية طوكا نوفمبر